magacaygu waa Axmed Caydiin Salaad milkiilaha shirkadda hadiyadaha Regalo ee ku taala magaalada Muqdisho. Regalo waxay qabataa waa dukaan loogu talagalay hadiyadaha lamaanaha dadka jecel waalidiinta mas'uuliyiinta meel muxuu sheegay ka soo doontaan hadiyadaha iyo wax kasta oo quseeyo dadku inay wax isku hadiyeeyaan. Shirkadda Regalo maamulkeeda shaqaalaheeda iyo dhammaan macaamiisheeda waxay ka qayb qaadanayaan shirka hal abuurka ganacsiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada Muqdisho. magacaygu waa Abshir Raage waxaan ka mid ahay dadka aasaasay shirkadda Somaliland. shirkadda waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah in qofka uu iib geeyo ama kireysto qaab online ah iyadoo si fudud ay qofka wax iska iibinaya ama kireysanaya iyo qofka iibinaya si fudud ay isku arki karaan ama ay wax kala bixi karaan. waxaan ka qayb qaadanaynaa shirka hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed yes waana bogaadinaynaa. magacaygu waa Maxamed Cabdi Jaamac maamulaha beerta nabadda. beerta nabadda saa u jeedaan waa goob dalxiis ah oo loogu talagalay in qoyska Soomaaliyeed uu ku dalxiiso khaasatan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. beerta nabadda waxay ka qayb qaadanaysaa shirka hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka dhici doona magaalada Muqdisho. magacaygu waa Cali Axmed Maxamuud Sid Cali Kukaay waxaan joognaa maqaayadda Pizza House oo ah maqaayad dhawaan laga furay dalka oo wax badan ku soo kordhisay magaalada oo ah meel ay badanaa dadka iskugu imaadaan dhalinyarada aad ugu nastaan xilliyada nasashada iyo xilliyada fasaxa keentana magaalada waxyaabo badan oo ka maqnaa dalka iyo guud ahaanba magaalada. waxaan ka qayb galaynaa madasha hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed waana bogaadinaynaa inaan ka qayb galno fursadaas. magacaygu waa Cabdiraxmaan Usmaan Ibraahim waxaan ahay maamulaha Zeylac Publishing House. Zeylac waxay qabataa daabacaad iibinta buugaagta translationka iyo tawsiicinta buugaagta. waxaan ka qayb galaynaa shirka hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed. magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Yuusuf oo ku magac dheer Xamiim waxaan ka mid ahay shaqaalaha Access TV waxaan u qaabilsanahay waxaan ahay madaxa marketingka ee shirkadda Access TV waa shirkad TV ah oo magaalada Muqdisho local TV ah magaalada Muqdisho waxaan ka qayb gali doonaa anagoo isku duuban bahda Access TV shaqaale iyo madaxba shirka hal abuurka ganacsiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka dhici doona magaalada